Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal dhammaan asxaabta nagu xiran waxaa idin leeyahay maalinimo wanaagsan waxaad nooga barateen sheekadii imtixaanaha ay ahayd heer jaceyl baartigii labaad ayaan idiin soo gudbin doonaa maanta waxay inoo joogtay hibo oo gurigii soo gashay haatanna ku soo dhawaada insha allah. markii aan in muddo aan wada fadhinay ayaa waxaa soo gashay qolkii inantaydii hibo iyadoo rabtay inay salaanto soona dhowaydo adeerkeeda ay aabbaheeda saaxiibka yihiin. ugu dambayntii waxaa qolka ku soo haray aniga iyo saaxiibkayga waxaana iska wareysanay waayo iyo waqti hore oo hore loo soo maray. waxaana daahir ugu bishaareeyey ama aan u sheegay daahir inaan ku dari doono inanteeda curadda ah si uu u dhaqdo. daahir iga aqbalayay arrinkii waxaana ka codsaday inuu in muddo ah isiiyo si aan gabadhayda uga dhaadhiciyo ama uga dhammeeyo arrinkaasi. habeen baa dumay waxaase baryay waagii waxaa sidii caadada ahayd ay inanteedii u kala haday waxbarashadii waxaan aan anigana talo aan kula laabtay xaaskayga hudda iyadoo weli ku adkaysanaysa inaynu inanta ku darno ninkani. markii ay soo rabaxday hibo ayaan wacay waxaana ku yidhi aabbo ii imaw qolka ama igu imaw qolka waxayna igu tiri waa yahay aabbe. way ii timid bacdal rubac saac ama nus saac kadib waxaana isku dayay si aan inantayda uga dhaadhicin lahaa arrinkani ula xishoonaya ayaan haddana nafta ku qasbay inaan hawsha shaaca ka qaado. aabbo hibo waxaan kugu yeedhay in aan maanta kugu hubsado guri xalaal ah maadaama aad tahay curaddaydii aanan rabo inaan arko ubadkaaga aabbo. aniga oo weli hadalka sii wata ayaan haddana u raaciyey mahmaahdii soomaaliyeed ee odhanaysay aabbo ogow inani ama god ha kaaga jirto ama guri. inta ay hibo boodday ayay ku jawaabtay aabbo maxaa ku helay weli waad og tahay waxaan wadaa waxbarashadii. sidoo kale aabbo waxaa jira wiil uun axdi iyo jeceyl naga dhexeeyo haddii ay noqoto in aan guursadona isaguun baan guursanayaa. markay arrinkaa halkaa marayso ayaan isidhi inantaydii hibo anigoo weli rajo ka qaba inaan ku qanciyo guurka. hibo way iga tagtay. sheekadani ma dhabo waa baartigii labaad waxaad la socon doontaa baartigii saddexaad insha allah. sida ugu dhaqsiyaha badan leh waan idinla soo wadaagi doonaa. idinkana waxaan laga baahan yahay inaad nagu taakulaysaan ama nagu dhiirigelisaan inaan barnaamijyadan aan soo dhammaystirno insha allah. hanaga baaqilina inaad noo soo garaysaan oo noo la garaysaan noo sheergaraysaan asxaabtiina la wadaagtaan wixii akhbaara ama fariin ah aad noogu reebtaan fideoga hoostiisa aad idinoo dhigtaan. aad iyo aad ayaa umahadsantihiin asxaabteeda sidaad igu xirantiin iyo sidaad ila socotaanna aniga waan idinla socdaa. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa barnaamijkan midka xiga insha allah.